waqtigan mugdiga ee taariikhda muslimiinta waxaa soo baxaya codad u taagan runta xorriyadda iyo sharafka dadka la dulmay waxaana ka mid ah Yaasir Cali Hurre xogayaha golaha sare ee siyaasadda Yemen ee garabka Xuutiyiinta oo hadal culus oo taariikhi ah u jeediyay dunida isagoo si geesinimo leh u sheegay xalka dhabta ah ee gobolka bariga dhexe ama sida Carabta ay u taqaano galbeedka Aasiya uu ku jiro burburinta nidaamka gumaysiga ee Israa'iil. Hadalkan wuxuu qayb ka yahay mowqifka cusub ay qaateen Xuutiyiinta Yemen gaar ahaan intii uu socday dagaalka Gaza ee soo bilowday bishii Oktoobar sanadkii 2023. waraysi gaar ah uu siiyay wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee dowladda Iran ee IRNA ayuu Cali Hurre ku muujiyay in shacabka Yemen aysan marnaba ka baqayn cawaaqibka ka dhalan kara weerarkooda ka dhanka ah Israa'iil. Weeraradaas oo lagu taageerayo dadka reer Gaza ee go'doosan la xasuuqayo isla markaana u dhimanayo gaajo iyo haraad, wuxuu si adag u sheegay in shacabka reer Yemen ay dhammaan xoogooda, naftooda iyo hantidoodaba u horayaan garab istaaga walaalahooda reer Falastiin. Tani ma aha halku-dhig siyaasadeed oo lagu buunbuuninayo dareenka shacabka, balse waa siyaasad firfircoon oo dhab ah oo si maalinle ah loogu dareemo marinada badda cas, hawada dhulka la haysto iyo marinada ugu muhiimsan ee gumaystaha Israa'iil.